موضوع تحنا إنه ترجلنا إنه كهذا المدرسة كدعاء قارة أفريقيا أنكم مدوا مركز قادة دون كنتني أفرت دل دعاء قارة أفريقيا وحين هذا تنقب بالله بين دل كدعاء كثير فوق قلبيت كأفريقيا لهم مجابو كبفرد كاس أو ككوبان طبعا كثير دود أو قرنيشان يتمنات أو جاري برتقيسكو وإنت إنه جود جلين فضلا هدات كان الكوكو عصب تاي أما أي تاي مركي كوجو ريده بوقتي سبسكرايب صار جنبالال كان فرصيات ugu taxnaato fiidiyoyadeena Cabo Verde ama Jamhuuriyadda Cabo Verde waa mid ka mid ah dalalka jasiiradaha ah waxa uuna ku yaala galbeedka Afrika ee badweynta Atlantic bedka ama masaaxada dalkan waxay gaaraysaa ilaa 4000 kilomitir square waana dalka shanaad ee ugu yar qaaradda Afrika waxaana ka kooban yahay ilaa 10 jasiiradood oo falkaana ka qarxado 10 xidig ay ku xardhan caalanka dalkan waxay cadeynayaan 10 jasiiradood oo ka kooban yahay dalkan waxay jasiiradda Cabo Verde qayb ka tahay jasiiradaha badweynta Atlantic ee loo yaqaan Migration Acreage Cabo Verde ayaana ah mid kaliya ee xorta ah inta kalena waxay hoos tagaan xukuumadda dalalka Portugiiska iyo Spain dalkani waxa uu magaciisu ka yimid Cabo Verde oo micnaheedu yahay halka ugu galbeedsan qaaradda Afrika ama dhanka galbeed ugu xigta dalkani waxa loo aqoon jiray Cabo Verde balse 2013 ayaa dawladda codsi ah geeyday qaramada midoobay in loogu yeero dalkani magaca Cabo Verde oo ah magaciisa oo Portugiis ah Pico da Fogo waa halka ugu jooga dheer ama buurta ugu dheer dalkan waana buur inta badan ay volcano ka qaraxdo markii ugu dambeysay oo ay ka qaraxdana waa sanadkii 2014 sida ay tahana waa goob muhiim ah dalkan oo waxa lagu beeraa fawaakiihda noocyadeeda kala duwan dalkani male wax wabiya sida darteed wuxuu ka mid yahay dalalka qataraha badan ugu dhibaatooyinka dabiiciga ah jasiiradahani waxa ay ahaayeen kuwa haawanaya oo aanay cidi ku nooleen markii ugu horeysay ee nafluhu cagta dhigaana waxa ay ahayd qarnigii 15aad markaasi oo ay gaareen jasiiradahani sahmeeyaal Portugiis ah waxayna si buuxda u noqdeen jasiiradahani kuwa hoostaga maxmiyadda ama gumaystaha Portugiiska goobta juqraafiyadeed ee muhiimka ah oo ay ku yaalaan awgeed waxa ay noqdeen saldhig muhiim u ah ka ganacsiga dadka adoonta ee laga keenay qaaradda Afrika qarniyadii 16aad ilaa 17aad waxa sare u kac sameeyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee jasiiradahan waxa ayna soo jiiteen ganacsato iyo burcadbadeed aad u fara badan qarnigii 19aad dhaqaalaha jasiiradahan hoos u dhac ayuu sameeyay sababtoo ah waxa hoos u dhac ku yimid ka ganacsiga dadkii adoonta ahaa iyo abaaro ba'an oo jasiiradahani ka dhaceen qarnigii 20aad taas oo galaaftay nolosha ilaa iyo 200,000 oo ruux waxa ayna sababeen sidoo kale inay dad badan ka hayaamaan jasiiradahani inta kadib jasiiradahani waxa ay noqdeen saldhig iyo dariiq muhiim u ah safarreyda badda waxayna tani keentay inay dhaqaale ahaan dib u soo kabsadaan jasiiradahani waxa uu Portugiisku hoos joogeen ku dhawaad 5 qarni sidaan soo sheegnay in jasiiradahani waxa ay ahaayeen kuwa muhiim u ah dhoofinta dadka galayadoonsanayay ee laga gadisiyay sidoo kale waxa ay ahaayeen jasiirado uu Portugiisku ka lahaa dana military intii uu Portugiisku xukumayay Cabo Verde waxa ka dhaqan galay dhaqan gooni ah oo la falgalay Yurubiyaanka iyo Afrikaanta waxaana soo baxay hab nololeed iyo dhaqan isu milan dhaqan Cabo Verde ayaa ugu dambeyn waxa ay bilaabeen inay ka dhidhiyaan xukunka Portugiiska waxa ayna qarnigii 20aad bilaabeen dadaallo iyo dagaallo ay ku doonayeen inay gaaraan xornimo dhameystiran 19 Sebtembar sanadkii 1956 waxa dhidibada loo muday xisbiga African Party for Independence of Guinea and Cabo Verde waana xisbi u halgabay in Guinea Bissau iyo Cabo Verde ay ka xoroobaan gumaystaha Portugiiska waxaana xisbigan xilligii xornimo doonka si weyn uga dhex muuqday Amilcar Cabral oo ahaa horjoogihii xisbiga halgan dheer oo rafaad badan kadib 6 July sanadkii 1975 ayay Cabo Verde ka xorowday xukunkii Portugiiska